theft or anything like that, just come to us and speak to us about it, okay guys? wuxuu sheegay inaan halkan u taaganahay inaan ilaalino naftiina sidoo kale aan ilaalino ganacsigiina wuxuu sheegay haddaad waddooyinka nagu aragtaan naga cabsanina nala hadla sidoo kale haddaad qabtaan su-aal ama nacayb ku saabsan ama dhib idinku dhaco waad ila wadaagi kartaan marka waxaan halkan u taaganahay inaan idinka ilaalino aan wadaagno waxa caqabadaha magaciisa Colin, Sarah And Sean. and Sean. Community policing marka wadankan waxaa jiro booliiska waxaa waaye community policingka waxay sameeyeen integration waxay dhex galaan communityga maxaa la yidhahdaa newcomer amba mataqaanaa bulshada ka baxsan Ireland amba Irish xataa ku dar so waxay tagaan activity-yada programmada maaragtay oo communityga ay qabsanaan so are you from a community diversity unit? No, we're just community policing, so we have various different roles within a certain area of the North Inner City. Okay, so marka iyaga community policing waaye maxaa la yidhahdaa ay sheeg inay community booliiska ay dhex galaan communityga oo laga cabsanin in su-aalo la weydiiyo in lala hadlo oo mataqaana ay sheeg waa fiican tahay inay joogaan sababtoo ay yacni caqabadaha aan qabno iyo waxyaabihii hadda la sheegaya in iyaga u sheegno in mataqaana iyaga naftirkooda ay hoostigareeyaan inay isku wacaan communityga ay la sheekaystaan oo mataqaana haddii xitaa qof booliisa oo dhibaato kugu sameeyo ayaga dhexdooda yaa lala xiriiri karaa oo loo sheegi karaa marka I'm happy you're here so there are a lot of questions be raised and you'll be answering okay so okay so habreed adee su-aasha maxaa ninkii noolaay oo intahay joogay asaa joogay ninkii dadhaa badoole بسم الله. English now, right? So, waxaan rabaa booliska inaan dhaho thank you guys inaan la imaateen happy inaan xushmaysan soo gaartay maanta waxaa jira su-aal badan rabnaa inaan wadi laakiin inaan wadi waxay tahay booliska ma ogyihiin ma naga aaminsan yihiin inaan nahay horta bini aadam inaan human nahay ogyihiin horta oo different people meesha aan nahay Soomaalida waxaa ugu jira aqoon-yahanaa ugu jira dakaatiiraa ugu jirta injineeraa ugu jira siyaasiyiinaa ugu jirta ganacsataa ugu jirta maalgaladaa ugu jirta culumaa ugu jirta inaan nahay dad bulsho qualified ah oo nooc kasta la horta ma ogyihiin su-aashaas la weydiiyey marka intaas su-aal inaa farax iyo dhigta second tabaad waxay tahay waxay intaa habi hadda aan karnayo oo ah in ay markii ay nala kulmaan ay nala dhaqmayaan qaabka ama hab ka hooseysa wax aan filayn sidaynu weydiiyaan su-aalaha qiis oo kale wax haddaan karnayo kale in qofka markii la wareysto oo la leeyahay homeless aad degan tahay waana jaakadahan iyo telefonaanta ka keenta hadda qofka wuu shaqeeyaa lacag wuu bixiyaa revenue cashuur bixiyaa waddanka ma helin xaqii oo ku lahaa dowladda ee deganaashada wadamada ka imaan anaga qofka hadduu shaqeeyo wuxuu leeyahay inuu guri helo wuxuu leeyahay inuu security helo wuxuu leeyahay inuu caafimaad helo marka anagoo shaqeynayno ayaa haddana waxaa la kulanaa hadallo oo muujinayo nacayb kan ku hagaajinaa ogyihiin horta waxaas horta levelkan horta inagu laqmaa horta ogyihiin horta ogyihiin horta waxaan ugu sameynayo sida dhanada baabuurta wadatoo kale dad oo aysan ogeyn level ahaan in hataa ay ka sarreeyaan marka qaar mid beelisho mid ayrsho adiga ka sarreysid ama hadday taa aqoon ama experience dhaqaalo aqoon waxa baa ka dheertaa waxuu ku leeyahay marka qaar darooga gadaa taag soo gashaa marka waxyaabahaas oo kale ah maanta inay horta waxay nagula sameeyay ogyihiin ogyihiin raallinkii qorshaha lagu jirtaa wax ka bedelaan ama sidii